hoose dhexe ee degmada Xariir ayaa saaka waxa si habsami looga bilaabay imtixaankii sanad dugsiyeedka 2012 ilaa 2013 iyagoo maanta ay ardayda u dareereen subaxnimaadkii hore ee saaka imtixaanka sanad dugsiyeedkaasi iyagoo qaarkood ardayda aan wareysi la yeelanay ayaa waxay ka sheekayeen imtixaankan iyo labada xiisadood ay soo mareen iyagoo xilli hore oo arorahayd ayaa qaarkood waxa hadalladooda kamid ahaa waxaad ka mid tahay ardayda maanta u dareertay imtixaanka dugsiga hoose dhexe ee magaalada Xariir in imsa maadood ayaad qaadateen saaka imtixaanka in balka waran xiisadaha qaadateen iyadoo uu socday imtixaankii si habsamiya horta shalay buu bilaabmay shalay waxaan qaadanay Soomaali English aad iska fiicna maanta waxaan qaadanay Carabi tarbiya in ma ku rajo weyntahay imtixaankaas in guulka aad ka soo hoyso aad iyo aad ugu rajo weyn marka hore ayaan Umar warsame in maanta imsa xiisadood baad qaadatay laba xiisadood maxay kala haayeen Carabi iyo tarbiya waan gartay marka kaalinta leeg ka sugaysaa imtixaankan maanta aad u dareertay kaalin fiican hay galaaska imsa baad dhigataa galaaska foor intaasi kadib ayaa wareysi khaas ah waxaanu la yeelanay maamulaha dugsiga hoose dhexe ee degmada Xariir Faysal Xaashin Rayaale waxaana ka sheekayay duruufaha ku gadaman ee dugsigaasi waxaana yiri bismillaahir rahmaanir rahiim nabaday daawadayaal in maamulaha dugsiga hoose dhexe ee degmada Xariir Faysal Xaashin Rayaale oo maanta wareysi aanu kula yeelanay in xarunta dugsiga hoose dhexe ee degmada Xariir gaar ahaan xafiiskiisa in maamule barmarka hore waxaad bixin naga siisaa xaaladda guud ee iskoolka maadaama saakan loo dareeray imtixaanaadkii bismillaahir rahmaanir rahiim horta ugu horeyn waxaan halkan mahad ballaaran oo aan soo koobayn ugu soo jeedinayaa bahda shabakada Shiniile News waan aad iyo aad nooga qabtirta baahiyaha wararka ee deegaanka aad iyo aad aan ugu xiranahay oo kamid ah shabakadaha noogu horeeyay aan had iyo jeer kala socono wararka iyaga ahna muraayad aan iska dhaxarayno sidoo kale waxaan mahad celinayaa wariye Cabdisamed Maxamed Cabdullaahi oo inta u badan wariyaha degmada Xariir marka ay noqoto ninka noogu badan ee waxyaabaha aan ka hadlayno ama tabashooyinka iyaga naga soo gudbiya isagana aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa haddaan u gudbo warbixinta xaaladda dugsigan hoose dhexe ee degmada Xariir runta marka laga hadlo waa dugsiga ugu ballaaran gobolka Sanaag ardayda ugu tiro badanina ay ku jiraan 702 arday ayaa sanad dugsiyeedkan wax ka soo baranayay dugsigan oo isugu jira hablo iyo inamaba 702 arday 326 kamid ah waa hablo dugsigan waxa wax ka dhiga 14 macallin oo ay laba kamid ah gabdho yihiin hadda waxa gabagaba sanad dugsiyeedkii 2012 soo socday oo imtixaanadiisii ay hadda loo bilaabeen guul baan u rajaynayaa ardayda dugsigu waxa leeyahay feedingka waxa la yiraahdo ama quudinta ardayda oo waqtiga break time-ka raashin ay WFP dugsiyada Soomaaliland qaar kamid ah ay siiso ay ku quutaan biyo sidoo kale dugsigu leeyahay oo hay'adda UNICEF ayadana loo sameeyay qasabad biyihii nadiifta ahaa ku jira dugsiga waxa ka dhiman 150 mitir oo deynka ah oo dib fara badan lagu hayso oo kaliya xaaladiisa kale aad iyo aad u fiican tahay warbixinta xaaladda guud ee dugsiga waa tahay in maamule in maadaama maanta imtixaankii baa loo dareeyaa ardaydu marka ay imtixaanka maraan galaaska 8aad in waxbarashadooda in dugsiga sare maadaama ay lahayn dugsi sare oo dugsi hoose dhexeeyay dugsiga sare oo dayactir xoogan ka muuqdo isla markaasina aan dhowr jeer isku daynayna qurbo joogtana isla markaana ay wax weyn ka soo tari doonaan hadduu ay baydmo in kadib marka ay ardaydu dhameystaan waxay u kicitamaan dalalka Itoobiya Djibouti in hadda qaar sanadkan dugsiyeedkii ka horeeyay waxay tageen iskoolka boodhanka magaalada Sayda qaar ka sanadkan dhameynaya fasalka 8aad in amba in imtixaanka loo yaqaan shahaadiga ee bisha soo socota la qaadi doono marka in tiro arday leeg ba sanadkan ka bixi doonta galaaska 8ka fasalka 8aad waxa dugsigan waxa in badan baa ka hadlay ardayda fasalka 8aad iyo baahida waxbarasho dugsi sare ay qabaan in badan ma ka soo hadlay maanta ma ku cilmiye fasalka 8aad waa fasalkii shanaad ee soo baxa 4 class oo hore oo weyn ah dugsiga ka baxay
hadda waxaa ku jira fasalkii shanaad sideedaad ah ardaydii hore ka baxday qaar hadda way dhameeyeen foorfarada jaamacadda sanadkeedii koowaad bay ku jiraan midda kale hadda waxaa dugsiga fasalka sideedaad ku jira 720 arday فمانك إنك هذا الدكتور سليس عاديين لما قال هذا سيلا وعطيني كبح الدكتور من هوسة الحياة حرب يدكتور على القادم صار هذا وصل من الدكتور يسأل المدرسين إلا لما كنا يجينا هذه الدكتور المدرسين لكن ما شغالين سويته شغالين لا هي هذا وانا شغالين ومعلمين تي أو كابي دقالة يكون شغالين لها يعني الدكتور يكون شغال لها أنا اللي هي باق فربنا ما نقدر نقول بجوته إلا هي هذا الرجوي هو يعني واحد بقلع أو كذا عن قلع أو كهينا مجرته أرضينا نروح معتي واحد يقول أحسن واحد برشلونة ويقول في عنها قف هذول ماشي والدجاجة وبريد ويجوا واحد برشلونة وأول بيقول أحسن يمكن كوا هراء بورم يهرجيسين يضربات الدرس كاتري واحد كان نسيبه أحسن أرضينا الدكتور سليس عاديين كجرا لكن وحن قرائن كوا سعادتين تجين كجرنا أي كان نسيب مناكسنانيا كوا هالكودن أقول بيجودي وياي واحد برشلونة استدي ده سلام كسو وتين ويكون هنا الدكتور سليس عادي أدي جوا مناكسنان ما كان واحد يقول هذا يقول بجوته ما دام الضغط يعني وحنا كعبة أو الدكتور سليس عاونت ديستا أنا كهيني أي dugsigaas sare furitaankiisa u xiltaan oo ay gacanta ku qabtaan xil la iska saaran kala jeeya aad iyo aad u fududku waa lagu mahadcelinayaa gaar ahaan sida ay hospitalka oo kale oo wax muuqda ay soo geyseen aad iyo aad baan in waa tahay maamule aad baad u mahadsan tahay in fursadan yaad jeceshayna halkan baaq amba aad uga dirto in waxaan soo gaarnay gabagabadii barnaamijkeena amba cid aad fariin gaar ah u dirayso waxaan halkan baaq u soo jeedinayaa kow wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliland maadaama shabakaddan in badan ay Soomaaliland dad badan daawadaan wasaaradda waxbarashada iyo baaq u soo jeedinayaa kow waxaan wasaaradda waxbarashada ugu baaqayaa gaar ahaan wasiirka wasaaradda waxbarashada dugsigan hoose dhexe aan ku bilaabay agabkiisii ama kuraasta oo kale ay ardaydu wax ku bartaan hadda waa sii dhammaanaya jajab fara badan buu badan yahay ardaydana dugsiga labada geliba maadaama ay buuxiso ay ka badan tahay in qalabkii dugsigana oo wax qalabaynay ugu dambeysay 2005 markii afarta fasal ee cusub lagu daray dibadda wax qalab dugsiga loo keenay ma jirto marka waxaan wasaaradda ugu baaqayaa waxbarashada in qalabkii kuraasta iyo miisaska haya ardaydu wax ku baranayeen oo cusub ay noo keenaan oo ay ardayda ka soo dhameystiraan wax kale wasaaradda waxbarashada ugu baaqayaa dugsiga sare qalabkiisii oo ay wasiirku loogu ballan qaaday maalinta la furo inay noo keenayso in sanadkan maadaama rajo fara badan qabno inuu foommankii dugsiga sare afka ka dhaqaaqo buugtiisii iyo kaabayaashiisii kale ee waxbarashada ee dugsiga sare ay iyadana soo dhammaystirtay wasaaradda waxbarashada ugu baaqayaa hay'adaha dalka ka shaqeeya Soomaaliland ee waxbarashada caawiya iyagana waxaan ka codsanaynaa suuliyadii dugsiga oo muddo sanad ah roobkii sanadkii hore xoogganaa ee daayeen iyo 150 kilomitir ee deerka ka dhisan ka dhiman inay iyagana naga caawiyaan oo hay'adahaas gacanta ku qabtaan oo naga dhisaan ugu baaqayaa joogteeda iyagana waxaan ugu baaqayaa waa dugsiga sare ee degmada Xariiro oo baahi fara badan loo qabo hadda marka xarunta xataa laga gudbo habaas iyo cabdiqaadir arday ee ilaaha ka soo baxa oo fooman diyaar ah
iyaguna saas oo kale ma haystaan laakiin meesha ugu dhow ee iyaga laftooda wax ka baran karaan waa dugsiga sare ee degmada Xarbo waa in badan farabadan ku soo celcelin arrinta in aan walaalaha ay u xaynataan oo gacanta ku qabataan in weyn iska saartaan iyo iyaga lagu barayo joogtay aad iyo aad loo wanaagsan waa tahay gabagabadii inaan weydiiyo dugsiga sare ee secondary school dhowr jeer baan tagay waa lay diiday inaan duubo waxaa degan ciidan military oo kamid ah ciidamada Soomaaliland sababta uu degan yihiin ciidamadu ma kala hadasheen wasaaradda waxbarashada mana u sheegteen sababtoo ah in meeshu waa dugsi inuu ciidan degan ama arrinta ciidanka horta ciidanku waxa dib ah dugsiga amnigiisa oo ay sugaan weeyaan wax ay dhibaato u geysanayaan ma jirto ciidankana sababta loo dejiyay waxa weeye waqtigii ciidanka la soo raray laga keenay saldhigoodii gaarsa ee degmada Xarbo la keenay iyo waxa isku beegmay xilli roobaadkii maadaama ciidan fara badan hayeen awal xeradoodii hore ay ciidanku deganayeen oo meel keen ah male guryo ciidanku uga dhisan waa geed hoostood waxay galaan marka roobabka sanadkan oo aad u cuslaa dartood oo ciidankii ay ku gali waayeen xeradii iyo barnaamijyadii ay deganayeen darteed iyay naga codsadeen ayay ka wada hadleen wasaaradda waxbarashada iyo wasaaradda gaashaandhigga maadaama dugsigii sare uu bannaan yahay oo hadda qalabkiisii uu yaalo laakiin ayna wax shaqaaha ka socon in intaa xilli roobaadka ay ciidanku kaga hadhaan roobka oo si deganaadaan amnigiisana ilaaliyaan ilaa hadda way degan yihiin waayo wali waxa lagu jira xilli roobaadkii laakiin maalinta oo xilli roobaadka ay dhamaado ciidanku xeradoodii bay ku noqonayaan oo ay degayaan waa tahay waxaan soo gaarnay gabagabadii barnaamijkeena ayaad halkan ka salaamaysaanba fariin gaar ah aad uga diraysa bismillaah waxaan horta halkan ka salaamayaa dhammaan gurbajoogta beesha ciise gobolkan Sal iyo gobolka City-ba أنا مركان شخصياتي اللي كانوا City Sal لبعض ما كنت سنة Sal City وقبل كان كسوة كري وإحنا كسوة برتين هذا اللي نروح عند قلنا هو قبل كسل جرى هذه مدي حرب وبجوز قبل كCity يسال بقى باشا آليات بلط الدمانة وسلامية جرى هم وحن هالكن وسلامية بروفيسور حرد ورمانتي نن واحد بدن lagu kordhiyay talooyin fara badan la siiyay halkan muddo laba bilood nala joogay oo gurbajoogta Kanada degan kamida ugu horeyn horta waxaan aad gaar ahaan u salaamayaa waa Professor Xareed waxa kale oo isagana si gaar ah u salaamayaa Farxaan Xasan Yaale waa mulkiilaha Zeyl News waxa kale oo salaamayaa Jamaal oo isagana hadda aan isbaranay oo ninka gudoomiyaha shabakada Shiniile News waxa kale oo halkan ka salaamayaa dhammaan dadkii gacanta ka soo geystay isbitaalkan degmada Xarbo maskax iyo maalba ka soo geystay ee qurbajoogta ka tirsan iyagana dhamaantood waxaan leeyahay waa salaamantii aad iyo aad baad u mahadsantihiin dadaalkaana halka ka sii wada wana nin mahadcelinayaa waa tahay daawadayaal intaas waxaan ku soo gabagabeynaa barnaamijkii gaarka aan la yeelanay maamulaha dugsiga hoose dhexe ee degmada Xarbo Faysal Xaashin Riyaale aad baan uga mahad celinaynaa waqti Abseen Maxamed Cabdilaahi Shiniile News Sayla